taariikh nololeedka superstarka door walbo samayn karo Ajay Devgan min bilow ilaa dhammaad. Soo dhowow daawade mar kale, waa anigoo ah Axmed Deeq Xasan. Halkan aad naga dawanayso waa deeqsame, nala joog ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan. mahadsanid. Vishal Veeru Devgan waa atoore, direktor iyo qarash gareeye Hindi ah, kaasi oo ka tirsan shirkadda Bollywoodka. wuxuu caan ka yahay in loogu yeero Ajay Devgan ama Ajay Devgan, asigoo xarafka magaciisa ka reebay si uu nasiibkiisa u wanaagsanaado. Ajay wuxuu ka mid yahay atoorayaasha ugu caansan Bollywoodka, sidoo kalena soddonkii sano ee ugu dambeysay si joogto ah fanka kaga dhex muuqday. Ajay wuxuu jilayaasha kale kaga duwan yahay inuu door walbo samayn karo, taasina wuxuu ku muuteystay inuu abaalmarino qaali ah ku guuleysto oo ay ka mid yihiin asigoo 2 jeer ku guuleystay National Film Awards oo ay dowladda Hindiya bixiso. Aktarkan dadaalka badan waxaa aabo u ah Veeru Devgan oo ah ruug cadaa Bollywoodka muddo dheer ka tirsanaa, sidoo kalena samayn jiray agshinmada ama ficilada helista ee filimada lagu soo bandhigo ayuu curin jiray. Laga soo bilaabo sannadii 91 markii uu ku soo caan baxay filimkii Paul Aur Kante ilaa haatan Ajay shaqo uusan qabanin ma lahana. filim walbo ee uu xiddigan jilo ammaan xad dhaaf ah ayuu ku helaa, wuxuuna leeyahay xirfad dabiici ah oo uu xiddigaha kala dheer yahay. Ajay Devgan waxaa u dhaxdo atirishada caanka ah ee lagu magacaabo Kajol, iyadoo u hayso wiil iyo gabar, waxayna nolosha wadaageen sannadii 99 ilaa haatana waa qoys farxad ku wada nool. Ajay Devgan iyo bilowgii noloshiisa 2 Abriil 1969 ayuu Ajay ku dhashay magaalada New Delhi. Xiddigan waa reer Punjab maadaama aabihiis Veeru iyo hooyadiisa Veena ay Punjab ka soo jeedaan. Ajay Devgan wuxuu wax ku soo bartay kana soo qalin jebiyey Silver Beck High School ee ku yaalo xaafadda Juhi magaalada Mumbai. Xiddigan noloshiisa inta badan Mumbai ayuu ku qaatay maadaama aabihiis Veeru Devgan uu Bollywoodka ka tirsanaa, sidoo kalena curin jiray ama samayn jiray agshinmada halista ah ee filimada lagu soo bandhigo. Ajay Devgan aabihiis Veeru Devgan wana film sameeye wana u dhintay. hadda Ajay walaalkiis waxaa lagu magacaabaa Anil Devgan, waana filim qarash gareeye fanka ka tirsanaan jiray, inkastoo u dhintay 2020. sidaa darteed xiddigan qoyskiisa Bollywoodka isaga ayay kaga soo horeeyeen. Ajay asigoo aad u dhalin yar ayuu ka helay ku biiritaanka shirkadda Bollywoodka, waxayna riyadiisa u rumowday sannadii 1985 asigoo wax ka jilay filimkii Biyari Behna, waxaana filimkan wada jileen Mithun Chakraborty, Badmini Kolhapure, Vinod Mehra, Tanvi Azmi iyo Shakti Kapoor. Ajay ayaa filimkan ku matalay doorka Mithun oo yar, waxaana aad loo ammaanay bandhigii uu filimkan Ajay ka sameeyey asigoo dhalin yar. soo shacbixidii Ajay Devgan iyo nasiibkiisii wacnaa 91 ilaa 97. Ajay Devgan hal mar ayuu magaciisa cirka galay, waxaana ugu wacnaa in filimkiisii koowaad ee uu hogaamiye ka ahaa Paul Aur Kante uu super hit noqday. Ajay wuxuu bogus ofaska ku garaacay Anil Kapoor iyo Sridevi oo wateen filimkii Lame, waxaana iska lahaa filimkan Yash Chopra. Ajay ayaa superstarkan ku noqday kuna dul socday Anil Kapoor, Sridevi iyo Yash Chopra maadaama Ajay filimkiisii Paul Aur Kante uu guul taariikhi ah gaaray, halka Lame uu flop noqday. Ajay muuqaalka uu filimka Paul Aur Kante ku soo baxayo oo ah inuu 2 mooto labadiisa lugood kala saarto ayaa noqday muuqaalkii 90 ugu caansanaa, waxaana loo aqoonsaday hogaamiyaha agshinka Ajay. filimka Paul Aur Kante oo ay la jishay madhow wuxuu ku qaatay abaalmarinta atooraha ugu wanaagsan ee Bollywoodka ku cusub, taasi oo ay shirkadda Filmfare bixiso sannadii 91. Aktarkan filimkiisii xigay isagana guul weyn ayuu gaaray, waana Jigar 92 kaasi oo noqday hit weyn, waxaana la jishay Karishma Kapoor. weliba Ajay sida uu agshinka ugu wacan yahay ayuu filimkan ku soo bandhigay. laakiin Ajay sannadii 93 shaqadii uu qabtay inta badan kuma farxin maadaama uu sameeyey ku dhowaad 8 filim, balse badankooda way guul dareysteen inkastoo isaga mar walba bandhigiisa jiliin lagu ammaanay. Ajay soo laabo aan caadi ahayn ayuu sameeyey, waxayna sannadii 94 u ahayd sannad u qaas ah maadaama xiddigan uu sameeyey aflaan kala sig oo guulo taariikhi ah gaareen sida Dilwale, Suhaag iyo Vijay Bhatt. Ajay cagaha ayuu dhulka la helay, sidoo kalena wuxuu noqday atooraha koowaad ee filim sameeyaasha baadi goobaan
laakiin xiddigan waxaa lagu dhaliilay inuu aqbali jiray sheekooyin isku mid ah. Inta badan doorarka uu qaatay kuwa agshiinka iyo argudasho u badan ayay ahaan jireen. Sannadii 95 Ajay wuxuu la yimid 4 filim ee uu hogaamiye ka ahaa, laakiin ma jirin filim u noqday hit dhammaystiran. Filimka Naajayas ee uu la jilay Juhi Chawla iyo Naseeruddin Shah ayaa guul u gaaray, kaasi oo afarage noqday, balse filimadii kale ee uu sameeyey 95 way guul dareysteen sida Hulchul, Gundaraj iyo Haqiiqat. Ajay Devgan dadaalkiisa oo xad dhaaf ahaa iyo inuu yahay atoore door walba samayn karo ayuu mar walba ficiisa kaga fiicnaa. Sidaa darteed sannadii 96 wuu soo rogaal celiyey, wuxuuna la yimid labadii filim ee guulaha waaweyn gaareen, Jaan Hit iyo Diljale Semi Hit. Laakiin filimkii Jung ee uu Mithun Chakraborty la jilay ayaa xiddigan ka guul dareystay walbo filim weyn la imaado. sidaa darteed sannadii 97 wuxuu tijaabiyey doorkiisa dhanka shactirada asigoo Aamir Khan la jilay filimkii Ishq Nasiib Wanaag. Filimkan wuxuu noqday mid super hit ah oo aad loo ammaanay sheekadiisa iyo qof walba bandhigii uu sameeyey. Ajay iyo marka uu bilaabay inuu awooddiisa Bollywood ka baahiyo 98 ilaa 2005 super starkan maqaamkiisii ugu sareeyey ayuu gaaray sannadii 98 maadaama filimkiisii Biyaar To Hona Hita oo ay ka jolla jishay super hit noqday. sidoo kalena filimkiisii kale Major Saab isagana guul dhexdhexaad ah ayuu gaaray, wuxuu noqday semi hit. Laakiin guulaha filimadiisa waxaa kaga qiimo badnayd Ajay in sannadii 98 abaalmarinta National Film Awards uu ku guulaystay, wuxuuna ku qaatay filimkii Sakhm oo ganacsi ahaan guul dareystay, laakiin sheeko ahaan aad loola cajabay. Ajay dabeecadaha lagu yaqaano super starda ayuu joogteeyey, taasi oo ah in ugu yaraan sannad walba filim hit dhammaystiran uu la imaado. Sida darteed sannadii 99 waxay u ahayd sannad isaga u qaas ah, maadaama 7 filim ee uu sameeyey 4 ka mid ah ay guulo waaweyn gaareen. dabcan filimada Hum Dil De Chuke Sanam iyo Kakshe Daage waxay noqdeen hit dhammaystiran, halka Hogi Biyar Ki Jeet uu semi hit noqday. sidoo kalena Hindustan Ki Kasam isagana afarage ayuu noqday, laakiin sannadkan waxaa ka guul dareysteen filimada kale ah Dil Kiya Kare, Geyr iyo Takshak. bilowgii qarnigan Ajay Devgan xaalkiisa ma fadhinin, awooddiisana hoos ayay u dhacday. xiddigan wuxuu tijaabiyey nasiibkiisa dhanka filim qarash garaynta asigoo maalgeliyey filimkii Rajo Chacha 2000 oo ay xaaskiisa ka jolla jishay, laakiin filimkan khasaaro taariikhi ah ayuu Ajay kala kulmay. sidoo kalena isla sannadii 2000 super starkan waxaa dhulka ka galay filimkii Deewane ee uu labo Ajay ku matalay, wuxuuna noqday filim guul dareystay. Flop ka dooro dibi dhal ayay noqotay sheekada maadaama sannadii 2001 uu Ajay Devgan la imaanin filim guulaystay, wuxuuna sameeyey aflaantii daadka wada qaaday oo ay ka mid ahayeen Yeh Raaste Hayn Biyaarke, Tera Mara Saat Rahen iyo Lajja. Ajay wuxuu ku guulaystay sannadii 2002 markii labaad abaalmarinta National Film Awards asigoo ku qaatay filimkii wadaniga ahaate Legend of Bhagat Singh. sidoo kalena doorkiisii filimka Kombani abaalmarino badan ayuu ku qaatay, wuxuuna filimka Kombani noqday mid guulaystay afarage. weli abaalmarinadii Devgan uu aruursaday sannadii 2002 ayaan ku dhex jirnaa. sidoo kalen laadarka ugu wanaagsan ayuu ku qaatay filimkii Deewange oo ilaa haatan lagu ammaano wejigii uu xiddigan ku soo bandhigay. Devgan ayaa sannadii 2003 Box Office ka gilgilay maadaama filimkiisii Boot ee cabsida ahaa uu noqday hit. sidoo kalena filimada Qayamat iyo Gangaajal iyagana guulo fiican ayay gaareen, waxayna noqdeen afarega. muhiimadda Ajay Devgan uu lahaa sannadii 2003 si wacan ayuu u gaaray, maadaama filimadiisa ay guulo gaareen, sidoo kalena door walba ee uu sameeyey uu ku helay ammaan dheeri ah. sannadii 2004 Ajay hadal haynta Bollywoodka ayuu la wareegay, maadaama filimkii weynaa Khake uu laadar ka noqday. sidoo kalena wuxuu ku helay ammaan fara badan asigoo kaga jiliin wanaagsanaaday dhammaan xiddigihii la jileen filimkan oo ay ka mid ahaayeen Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai iyo Akshay Kumar, wuxuuna Khake noqday filim guulaystay afarage. sidoo kale isla sannadii 2004 filimkii shactirada badnaa Mast ayuu door wacan ka qaatay, wuxuuna filimkan noqday hit dhammaystiran.
Superstarkan sannadii 2005 waxay u ahayd sannad uusan jeclayn in dib loo soo xasuusiyo waayo filimo badan ayaa ka khasaareen oo ay ka mid yihiin Insan, Blackmail, Main ay saxiixoon, Tango Charlie iyo Shikhar. Laakiin sannadka wuxuu ku qatimay 2 filim oo guulaysteen Kaal iyo Abaharan. Weliba filimka Abaharan Devgan wuxuu ka caawiyey inuu u tartamo abaalmarinta atooraha ugu wanaagsan ee filim fare iyo National Awards balse kuma guulaysanin. Ajay iyo taxanihiisii Golmaal marka uu bilowday iyo sida uu wejiga u badashay 2006 ilaa 2009. Waxaa wanaagsan dabeesha dhinaca ay u socoto inay doontaada u shiraacato, waana sida uu sameeyey Ajay Devgan waayo xiddigan wejiga ayuu badashay wuxuuna bilaabay samaynta filimada shactirada ah. Sidaa darteed sannadii 2006 Ajay wuxuu sameeyey filimkii shactirada badnaa Golmaal Fun Unlimited kaasi oo guul weyn gaaray wuxuuna noqday hit. Sidoo kale Golmaal wuxuu noqday filim classic ah oo uu Ajay bilaabay inuu taxane ka dhigo sidoo kalena ay saaxiibo ku noqdaan Rohit Shetty oo filimkan iska lahaa. Sidoo kale sannadii 2006 Ajay wuxuu wax ka jilay filimkii fariinta adag xambaarsana Omkara. Inkastoo filimkan uu guul dareystay, haddana xiddigan ammaan badan ayuu ku helay wuxuuna u tartamay bilado kala duwan. Sannadii 2007 xiddigan shaqo buuran ma qabanin laakiin 2 filim ee uu la yimid dhulka ayay galeen waana lagu khasaaray Kash iyo Ram Gobal Farma Ki Aag. Ajay Devgan wuxuu dareemay in loolanka uu ku saayiday sidoo kalena u baahan yahay filim hit ah, laakiin aflaantiisii xigeen ma samayn wax guulo ah, wayna guul dareysteen, waxaana ka mid ah Halabol, Sunday, Umme Aurhum iyo Mehbooba oo dhammaantooda sannadii 2008 soo baxeen. Weliba filimkii Umme Aurhum wuxuu ahaa filimkii ugu horreeyey ee uu direktor ka noqday xaaskiisa Kajol ayaa la jishay. Inkastoo sheeko ahaan filimkan la soo dhoweeyey, haddana waa filim guul dareystay, flop, oo lacagtiisa dib u soo celin waayey. Ajay waa xariif iyo xeeladihiisa waa kuwo badan sidaa darteed saaxiibkiis Rohit Shetty ayuu dib ula midoobay waxayna la imaadeen filimka taxanaha Golmaal qaybtiisa labaad ee lagu magacaabo Golmaal Return. Sidii laga filayey filimkan shactirada ah aad ayaa looga helay wuxuuna gaaray guul weyn asigoo noqday big hit. Superstarkan haddana sannadii 2009 ma samaynin filim hit dhammaystiran noqday waayo filimkii London Dreams oo ay wada jileen isaga iyo Salman Khan waa mid guul dareystay, flop noqday. Laakiin sannadii isla sannadkan Ajay waxaa u guulaystay filimka Alte Best Fun Begins ee uu saaxiibkiis Rohit Shetty iska leeyahay wuxuuna noqday afarage. Superstarkii soo rogaal celi 2010 ilaa haatan looma dhowaan karo hoos u dhac walba oo xiddigan qabsaday marnaba calankiisa ma dhicin. Sidaa darteed dadaalkiisa ayuu ku muteystay xilligan oo loolanka Bollywood-ka aad u sareeyo inuu maqaam sare ka taagnaado. Ha u malayn 3 Khans iyo Akshay Kumar oo keliya inay 30 sano Bollywood-ka ka dhex muuqdeen. Devganna kama liito oo cagta ayuu cagta u saaray. Sida darteed Superstarkan sannadii 2010 wuxuu la yimid 3 filim oo guulo taariikhi ah gaareen: Rajneeti, Super Hit, Onke Ubon Atime in Mumbai, Hit iyo Golmaal 3, Blockbuster. Sidoo kalena filimkiisii kale Atiti Tum Kab Jooge isagana guul dhexdhexaad ah ayuu gaaray. Ajay guusha ayuu saaxiib la noqday. Sidoo kalena sannadii 2011 wuxuu la yimid filimkii wacnaa ee agshiinka ahaa Singham kaasi oo super hit noqday wuxuuna Ajay dib u soo ceshtay darajadiisii agshinka. xiddigan xaalka Bollywood ayuu fahmay, marna agshiinka ayuu sameeyaa marna shactiro, wuxuuna 2012 la yimid filimkii shactirada badaa Bol Bachchan oo ay Abhishek Bachchan isla jileen wuxuuna filimkan gaaray guul weyn asigoo noqday hit dhammaystiran. Sidoo kalena filimkii Son of Sardar isagana 2012 soo baxay wuxuu noqday hit weyn taasi oo Ajay ka caawisay inuu sii adkaysto booskiisa superstarnimo. Superstarkan sannadii 2013 uma ahayn sannad wanaagsan waayo labadiisii filim way guul dareysteen Himatwala iyo Satyagraha taasi oo ka dhigtay in xiddigan guul dhan uusan arkin sannadkan. Ajay wuu soo laabtay wuxuuna la yimid 2014 taxanaha Singham qaybtiisa labaad ee Singham Returns wuxuuna filimkan noqday super hit. Weliba xiddigan doorkiisa Bajiro Singham wuxuu noqday mid classic ah oo si guud loogu sacabo tumo.
Dhammaadkii 2014 Ajay Devgan wuxuu la yimid filimkii lacagaha fara badnaa lagu qarash gareeyey Agashin Jackson ee uu iska lahaa Prabhu Deva, laakiin mashruucan si weyn ayaa loogu fashilmay wuxuuna noqday filimkan mid guul dareystay. Ajay sanadkan 2015 hal filim ayuu sameeyey, waana filimka sheekadiisa aadka loola wada dhacay Drishyam. Filimkan guul dhexdhexaad ah ayuu gaaray, Aferage, laakiin Devgan iyo sida daacadnimada ku dheehan ee uu filimkan u matalay ayaan marnaba la iloobi karin. Ajay Devgan laba arrin ayuu ku ammaanan yahay. Xiddigan xaalad walba oo soo martay ma quusanin, sidaa darteed 30 sano ee ugu dambeysay dadaal xad dhaaf ah ayuu sameeyey, loolan walbana wuu ka soo gudbay. Sidaa darteed Ajay Devgan wuxuu sameeyey 20 filim oo hit dhammaystiran noqdeen, kaliya Shah Rukh Khan iyo Salman Khan ayaa xiddigan ka hit badan. Sidoo kale Ajay Devgan waa atoore door walbo lagu ammaanay, wuxuuna ku guulaystay 32 biladood oo kala duwan, taasi oo muujinayso in xirfadiisa ay aad u sarayso. Ajay Devgan iyo noloshiisa gaarka ah. Xiddigan waxaa u dhaxday oo xaaskiisa ah Kajol Devgan, oo ay isguursadeen 24 Febraayo sannadii 1999, waxayna haatan isku dhaleen gabar iyo wiil. Weliba gabadhooda Nyasa waxay dhalatay 2003, halka wiilkooda Yog uu dhashay 2010. Ajay iyo Kajol sannadii 94 ayay isku barteen filimkii Hulhul ayagoo wada duubayeen muddo 5 sano ah. Markii ay saaxiibo ahaayeen ayay isguursadeen, waxayna labadan xiddig ka mid yihiin lamaanayaasha Bollywoodka ugu awoodda badan. Ajay Devgan waa atoorihii ugu horreeyey ee Bollywoodka ka tirsan kaasi oo iibsado diyaarad nooca raaxada ah, kaasi oo 6 qof qaadi karto. Wuxuuna xiddigan diyaaradiisa u adeegsadaa safarada gaab-gaaban marka uu filimada duubayo ama xayeysiin u sameynayo filimadiisa, oo uu gobollada Hindiya u kala safraayo, ama xitaa qoyskiisa marka ay dalxiis u baahdaan ayuu ku qaadaa. Haddii aad ka hesho muuqaaladeenna, fadlan nagu dhiirigeli legtaada channelkeennana ku soo biir, siina gudbi muuqaalkan si aan u helno saaxiibo adoo kale ah. Waadna ku mahadsan tahay tixgelintada.